nebigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam jibriil calayhi salaam intuu u yimaado ayaa isagii jibriil bishaa rabadaan qur-aanka ay darsi jireen, qur-aanka ayay akhrin jireen qur-aanka. marka innakuna waxaa laynaga doonayaa inaan bishaa maalinteedana aan wakhtigeenna aan buuxinno, oon cibaadada iyo salaada iyo qur-aanka iyo dikriga iyo daacadda ilaahay iyo mudaarasata alcilmi aan ku buuxinaa laynaga rabaa. habeenkiina salaataleyl iyo munaajaad iyo salaata taraawiix inaan wakhtigeenna ku buuxinaa laynaga doonayaa. laba meeloodba shayddaankaa gala bay culimmadu yidhaahdeen. wakhtiga madhanna shayddaanka ayaa dega, aqalka madhanna shayddaanka ayaa dega. marka qofka muslimkaa la dooni maayo wakhtigiisa inuu ka dhiga firaaq, bal firaaqa wakhtigaaga ka ilaaliyo oo buuxi. oo maxaan ku buuxinaynaa? waxaan ku buuxinaynaa bishani maadaamay tahay bisha qur-aanku uu soo degay, qur-aanka akhriskiisa ayaan badinaynaa. maadaamuu nebigeennu calayhi salaatu wasalaam bisha malakuljibriil intuu u yimaada qur-aanka ay wada darsi ay jireen, innakuna bisha rabadaan waxaa la doonayaa qur-aanka inaan darsino. ood ugu yaraan bal maalintii hal juz oo qur-aan aada akhridaa, si bishaa rabadaan qur-aanka mar aada u khatimtaa. haddaad saddex juz maalintii aada akhridana waxaad khatimaysaa 3 jeer baad qur-aanka khatimaysaa. haddaad 5 juz aad akhrida qur-aanka maaragtaane maalin kastana 6dii maalmood baad qur-aanka ku khatumaysaa. oo laga yaabaa bishaa rabadaan inaad khatimto maaragtaane 6 jeer 7 jeer. cuثmaan binu cafaan radia allaahu canhu ayaa odhan jiray, haddii quluubtiinu daahir ay noqon lahaydna qur-aanka akhriskiisa kamaad daasheen buu odhan jiray. qur-aanka akhriskiisa kamaad daasheen. lidaalika waxaa salafu saalix culammadu ay sheegaan saxaabada maahayna dadkii ka dembeeyey xataa taabiciintii taabicu taabiciin ilaa yowmina haada dad waxaa la helayaa qur-aanka maalintii mar khatimaaya, qaarkoodna 2 jeer bay maalintii qur-aanka khatimaan oo waa la helaa. imaam ashaafici raximahullah ayaa laga sheegay inuu bisha rabadaan 60 jeer qur-aanka uu khatimayay 60 jeer. innaguna maanta maxaan ka sheekaynaynaa? muslimiinta maanta weliba bishan rabadaan iyo maalmahan sheekada inagu badan waxa weeyaan xanuunkaa yaree adduunka lagu sheegay maanta dadkao dhan ka cabaadsiiye ka qaylisiiyey, labadii isku timaadaba xanuunkaa bay ka sheekaynaysaa maanta. yaa leyt sida xanuunka aan u hadal hayno haddaan ilaahay u hadal hayn lahayn, oon qur-aanka u akhrisan lahayn, oon istikfaarta u badin lahayn, oo ilaahay dikrigiisa u badin lahayn, lakaana khayran khayr baan ku sugnaan lahayn. man dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsii baa ilaahay yidhi xadiis alqudsi. addoonka aniga keligii xasuusta baa ilaahay leeya, keligay baan xasuusan. addoonka jamc igu dhex xasuustana jamaca uu igu dhex xasuustay jamc ka khayr badan baan ku dhex xasuusan baa ilaahay yidhi xadiis alqudsi. natadaakar intaad wax kale hadal haysid, makhluuq intaad hadal haysid inaad hadal haysa kula quman oo kuu fiican inaad ilaahay la munaajootid. saalixiinta waxay ahaayeen markay dadka la hadlayaanna way dhibsanayeen, markay keligood meel ay fadhiistaanna waxay dareemayeen inay wehel ay haystaan. waayo keligood markay fadhiyaan waxay la munaajoonayaan waa ilaahay, qur-aankiisay akhrisanayaan. qur-aanku waa kalaamki ilaahay, waa mawcidadii ilaahay oo caalamka u jeediyey. haddaad doonto adigu inaad ilaahay aad la hadashidna baa la yidhi salaada tukog, oo qofka tukanaya ilaahay buu la munaajoonayaa. haddaad doonto ilaahay inuu adiga kula hadlana qur-aankiisa kala furo, qur-aanka ilaahay akhriso. saxaabada radia allaahu canhum iska daa masaajidka dhexdeedee meelaha majaalista ay leeyihiin markay fadhiyaan waxay maaragtaane ay dhegaysanayeen mar walba inay ilaahay isxasuusiyaan, oo aakhirada isxasuusiyaan, oo saacadda qiyaamada isxasuusiyaan. fi sunan waxau nebigeennu sheegay, wuxuu sheegay imaam muslim raximahullah, rasuulkeenna calayhi salaatu wassalaam ayaa saxaabadiisa qaar ka mid oo meel fadhiya ayuu nebigu u yimiday. markaa buu nebigu ku yidhi maxaad hadal haysaan bal ii sheega. markaasay yidhahdeen saacadda qiyaamada ayaan hadal haynaa. waa zamankee? waa 1400 oo sano ka hor intay saxaabadu meel ay fadhiistaan bay ka sheekaynayeen saacadda qiyaamada ee soo socota goormay dhici doontaa. innakaa uga xaq leh inaan maanta hadal hayna saacadda qiyaamada. markaa buu nebigu ku yidhi innahaa lan taquuma saacatu xataa taraw qablaha 10 aayaat. saacadda qiyaamadu ma dhacaysa buu nebigu yidhi, imani mayso ilaa ka hor aad aragtaan
toban calaamadood buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam tobankaa calaamadoodi waa calaamaatu lkubraa ayaa la yidhaahdaa laakiin waxaa jira ashraadu saaca wax la yidhaahdo calaamaatu suqraa iyo kuwa la arkay maanta haddii la tiriyana maanta magaalo walba waa laga helayaa calaamaatu suqraa laakiin nebigu saxaabada xadiiska wuxuu ugu sheegay saacadda qiyaamadu inaynan dhici doonin ilaa aad aragtaan ama adduunyada dusheeda lagu arko toban calaamadood buu nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fadakara addukhaan والدجال ودابة ونزول عيسى بن مريم وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب وآخر ذلك النار تخرج من قعر عظم تحشر الناس إلى محشرهم بنبي يري عليه الصلاة والسلام وحو رسول كأنه يري ساعد قيامته ما دعي دونتو إلى الله أركته من علامات markaa buu nebigu sheegay qiiq samada ka imanaya buu nebigu sheegay kama fii nasi اlqur'aan faاrtaqib yowma taأti الsamaau bidukhaanin mubiin yaksha الnaasa hada cadaabun aliim waxau nebigu sheegay qiiq samada ka imanayay buu nebigu sheegay waxaa kaluu nebigu sheegay dajaal buu nebigu sheegay calayhi الsalaatu wasalaam oo adduunyada buqcad kuma taallo ilaa dajaal uu marayaa dadkana wuxuu ka dhaadhicinayaa inuu yahay rabbigii isagu dadka abuuray inuu yahay buu ka dhaadhicinayaa wa sharu ghaa'ibin yuntadar ayuu nebigu yidhi fadajaal fa sharu ghaa'ibin yuntadar aw isaaca wasaacatu adhaa wa amar dajaal buu nebigu sheegay inuu imanaya aakhira zamaanka maanta zamankan maanta ka warrama saxaabada rasuulka ridwaan ullaahi calayhim ajmaciin axaadiista dajaal ku saabsan markuu nebigu uga warramaayo waxay yidhaahdeen waxaan moodi jirnay sida uu hadalka nebigu quluubtooda u saamaynayey dhirta naga dambaysa inuu dajaal ku jiraan u malaynayna asxaabtu yidhahdeen waa 1400 sano ka hor weeyaan waxaas uu nebigu ka warramaayo innagana maanta zamankeenna ka warrama corona virus baa maanta caalamka o dhan wareeriyo la hadal hayaa xanuun amar ilaahay ku socda oo jundun min junuud illaahi ah oo qofkii ilaahay ugu talagalay maayna qof kale aan ku dhacayn ayaa caalamkao dhan labadii isku timaadda maanta ay ka sheekaysanaysaa saxaabaduna 1400 sano ka hor waxay ka sheekaysanayeen dajaal inuu soo socdo marka uu nebigu dajaal uga sheekaynayana bay yidhaahdeen waxaan u malaynaynay yaqiinta khabarka nebiga ay u qabaan dhirta naga dambaysa dajaal inuu ku jiraan u malaynayna asxaabtu yidhahdeen dajaal buu nebigu sheegay inuu adduunkao dhan maraayo janno iyo naar wax u eg buu wataa waxa uu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qof walii qofkii isaga rumeeye raacana waxaa jannada u eg u wato ayuu ku tuurayaa dad alliya dadkii isaga inkiray yidhahda rabbi ma tihide kaafir dajaala ayaa tahayna naartuu ku tuurayaa markaa buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam tobanka aayadood ee suuratulkahf ninkaa akhrista maalintii ilaahay fitnada dajaal waa ka badbaadiyaa buu rasuulku yidhi wa fii riwaayatin toba ka dambena nebigu waa sheegay waxaa kaluu nebigeennu sheegay calayhi الsalaatu wasalaam dajaal inuu adduunkao dhan uu saamayn oo uu galayaa makiya madiine ma galaya buu rasuulku yidhi wa fii riwaayatin xadiistu waxay sheegaysaa 4 meelood dajaal ma galaayo jabalu tuur buurtii nebi muuse calayhi الsalaam loogu waxyooday ee ilaahay nebi muuse uu kula munaajooday ma galayo dajaal makana ma galaayo madiinana ma galaayo qudusna ma galaayo buu rasuulku yidhi masjid alaqsana dajaal ma galaayo laakiin shiriiriin dadka sharka badan leh munaafiqiinta ee makiya madiine dhexdeeda ku dhuumanaya ku nool ayakaa dajaal bannaanka ugu baxaya buu rasuulku yidhi calaamadda saddexaad buu nebigu yidhi waa daabad dhulka ka soo baxaysa buurta safa la yidhaha ina asafa waalmarwa sakhradaa bay ka soo baxaysaa iyaduna adduunyadao dhan bay maraysaa qof kastoo adduunyada ku yaallabay yuu nebigu yidhi waa ishaabadayn waxa qof walba uu yahayna way ku qormi doontaa buu rasuulku yidhi muuminka muumin bay ku shaabadayn kaafirkana kaafir bay ku shaabadayn waxaa kaluu nebigu sheegay inuu imanayo nebi ciise calayhi الsalaam yanzil calaykum ibnu maryam xakaman cadalan fayaksira الصaliib wayaqtula alkhinziir wayadacu ljizyata nebi ciise calayhi الsalaam ayaa dushiina ku soo degi doona buu rasuulku yidhi
xakaman isagoo xaakima shareecadda islaamku adduunyada ku xakumi doonaa uu cadaalad fali doonaa dulmiga maanta aqal walba iyo mujtamac walba saameeyey uu ka rafici doonaa saliibka gaaladu ay yidhaahdaan nebi ciise lagu xidhoo lagu daldalayna uu jebin doonaa cadaaladda islaamku adduunyadoo dhan ku xakumi doonaa buu rasuulku yidhi waxaa kaluu nebigu sheegay yaajuuja wamaajuuj in iyakana la furi doono buu rasuulku yidhi waa laba ummadood oo ku abtirsada yaafith binu nuux bay ku abtirsanayaan ummaddiiba waa 400 kun mid iyaka ka mida ma dhinta baa la yidhi ilaa uu arko 1 wiiloo isagu uu dhalay oo qaan gaadho dagaalka galay mooyaane ummaddaani adduunyada waa lagu soo furi doonaa xataa idaa futixat yaajuuju wamaajuuj wahum min kulli xadabin yansiluun waa ka qur-aanka ilaahay noogu sheegay waxaa kaluu nebigu sheegay ashamsu buu nebigu yihi calaamadda lixaad waxaa ka mid a cadceedda oo ka soo noqota meeshay ka dhacdo laba marxalo qofku intaynan soo gaadhin hadduu toobadkeenna buu nebigu yihi toobadda ilaahay jalla wacalaa waa ka aqbalaa laba marxaladood naftu markay ka soo baxdo jidhka oo dhan ee halkaa hunguriga dhuunta iskugu timaado hadduu yidhaahdo qofku markaasan ilaahay u soo noqonayaa toobaddaa laga aqbali maayo nacam hadday cadceeddu galbeed ka soo noqotona albaabkii toobadda waa xidhmay buu rasuulku yidhi 3 meeloodoo adduunyada ku taallana buu nebigu yihi dhulka ayaa gu'i doona khasfun fi lmashriq dhulka cadceeddu ay ka soo baxdo waddanno dhan iyo ummado dhan baa la waayi doonaa calaamadda 7aad waa taas calaamadda 8aad buu nebigu yihi khasfun fi lmaqrib galbeedka adduunyadana waddanno dhan iyo ummado dhan baa dhulku la gu'i doonaa calaamadda 9aad buu nebigu yihi khasfun fi jasiirati alcarab jasiirati alcarab dhexdeedana dhul iyo ummado dhan baa la waayi doonaa calaamadda 10aad buu nebigu yihi walaalayaal waa naar ka soo baxaysa cadan magaalada cadan gunteeday ka soo bixi doontaa banka qiyaame dadka ku soo ururin doontaa buu rasuulku yidhi 10kaa calaamadood baa ka soo horreeyey buu nebigu yihi saacadda qiyaamada 10kaa calaamadood maanta wax ka sheekeynaya waa yar yihiin xanuun bay ka sheekeynayaan xanuun gaajay ka sheekeynayaan abaar bay ka sheekeynayaan waxaasaa maanta adduunya dadka la weyn maanta